Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa salaamay dhammaan walaalada adduunka meel kasta ka joogtiin. Maanta safaraa la soo galay. Waxaan joogaa airportka Detroit, Mareykanka. Torontoan ka soo baxay maanta duhurkii. Hadda waxay noo tahay 2:03 Ohio Columbus aan idiin sheegay Mareykanka aan aadayaa. Marka waa idin salaamayay. Meeshaan waxaan uga dirayaa jawaab insha Allah. Dhowr qof oo meesha comment igu soo diray qaar maasha Allah dad aad wanaagsan oo sharaf leh oo ku soo dhaweynayo ku dhahayo maaragtay Ilaahay hooyaha ku caafiyo, iyo qaar maaragtay si sharaf leh kula hadlayo ku dhahayo maaragtay waa lagu waayay oo soo noqo. Qaarna waxa waaye videoga hadda ugu dambeeyay oo ahaa maama Malyun aan ka hadlayay. Anigu maama Malyun specifically kama hadlayn, waxaan ka hadlayay in maaragtay aan iska dayno qabyaaladda iyo qurunka aan ku dhaqmeyno, oo aan iska dayno maaragtay sida aan annaga hoos isugu dhigeyno. Islaantan maama Malyun la dhahayana waxa waaye inay maaragtay dadka isayasin oo maaragtay qabyaaladda iska dayso, ana la dhageysanin dadka noocaas oo kale maskaxda saysan nooga tirtirin. Intaas aan ka hadlayay. Marka waxa waaye in maaragtay ayada maama Malyun iska daa iyo maxaa ku daba dhigay iyo maxaa ka rabtaa iyo qaar ku dhahay maama Malyun ka fogow haddii kale 411-kaaga keenaysaa. You guys don't even know what the hell is 411. 411 wax la dhaho maba taqaaniinba. Maaragtay haddii 411-ka maaragtay dad keenaysana waxa waaye waa hore wax keeni lahayd, ma fahanteen? Haddaa rabtiin 411-ka in la idin keeno waa la idin keenaa 411-keeda gebigeedaba, iyo income ka soo gala iyo meeqay qaadataa iyo meesha ka soo gasho lacagta iyo wax kasta la idin keenayaa, ma fahanteen? Marka waxa waaye inaa maaragtay aad dadka maanta dhan raba in dad la isku diro oo maanta dhan dad la iska qaado oo la iscaayo oo maanta dhan maaragtay la iska sheego wax oo maanta dhan marba laba qof la isku diraayo. Hadda waa kaas wiilka Maxamed Busudka haysatay aan dhahayay faraha in saas dadka loo caayo ma aha. Hadda maanta waa ka videoga soo dejiyo dhahayo maaragtay gabar baa waxay ii soo dirtay message dhahaysa maama Malyun anigaa u diray maaragtay message-ka in qabiilkaaga iyo picture-ka gabadha islaameed Facebook lagala soo baxay internetka waxa anaa u diray maaragtay adigana waxaan kuu soo dirayaa wiilasheeda iyo meeshay sarqaamiinta ku ahaayeen iyo meeshay sidaan ku ahaayeen iyo meeshay sidaan ku ahaayeen adigana suuqa soo dhig. Marka waxaa la rabaa waa shayaadiin, waa jahannamo dadku wada. Waxaa la rabaa in maanta la kala shaqaysto oo la isku kiindiro oo maanta la isgubo oo kan uu caayo oo kan oo la shido oo hadhow qabiil loo bedelo oo hadhow waxa way gacanta la soo la tago. Hebel karbaashay iyo hebel saas sameeyay iyo maanta dhan waxaas lagu jirayaa. Marka waxa idin sheegayaa aniga dan yeesha oo mustaqbal yeesha. Soomaaliya waxay 10 years dagaalka ugu jirtaa oo u kici la'dahay waxa waaye wasakhnimada aan ku jirno iyo mustaqbal la'aanta iyo meesha la soo farfadhiyo waa la soo farfadhiyaa. Cilmi iyo tacliin iyo mustaqbal midna ma jiro. Waxa waaye meel looma socdo, absolutely meel loo socdo ma jiro. Marka khayr isku ognahay waxa waaye bal qofkii 411-ka keeni karana ha keeno. Hadda anaa idin sheegaya waxa waaye hadda Columbus u socdaa 411-ka anaa idin siinaya macnihiisa 411-ka taqaaniin anaa idin siinaya hadda waa aniga Columbus u socdo. Marka dawaakaas khayr idinku ognahay maaragtay insha Allah waa ismaqli doonaa markaan dhago xoogaa nasto aan hooyo soo arko. waa soo duubi doonaa video kaleeto oo idinla soo socodsiinaya akhbaartayda meeshay marayso insha Allah iyo xaaladdu meeshay marayso. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaam dhammaan.